السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta ciwaankeena wuxuu ku saabsan yahay cago olol. maxaa keena cago ololka? daawadiisu waa maxay? sidee loola tacaalaa ama looga hortagaa cago ololka? cago ololka marka hore waa inaad lugaha ka dareentaa olol ama hur. waxaa keeni kara laba xaaladood, mid la xiriira xanuuno iyo mid iska caadi ah oo yani xanuun aan la xiriirin. marka aan ku hormarno xaaladda aan xanuunka la xiriirin, waxaa kamid ah cayilka oo kale. qofka markuu buuran yahay oo kale waxay sababtaa yani in cagihii ay ololaan oo kale ee xididada oo cagaha dhaawacmaan. sidoo kale waxaa keenaan dumarka, xagga dumarka markay uurka leeyihiin oo kale culeyskaas uu keeni karaa cago ololka. ama waxaa ku imaada dumarka inta ay yani uurka leeyihiin hormonaadka oo kale inay isbedelaan oo kale, dheecaanadii oo kale inay bataan oo kale, marka waxay sababi karaan cago olol. sidoo kale muqaadaraadka oo kale dadka isticmaalayo ayagana waxay ku sababi karaan cago olol. sidoo kale kobaha la xirto oo kale, kobaha oo taakada leh oo kale, amaba kobaha kugu dhagan oo kale inaa xirtid oo kale waxay keeni karaan cago olol. xaaladahaas kamid ah yani xaalado oo iska caadi ah aan la xiriirin xanuuno. xaaladaha xanuunada la xiriira ah maano waxaa kamid ah qofka in fitamiinaadka ay ku yaraadaan oo kale, sida vitamin B oo kale, vitamin B2 alifka ama vitamin B6ka. waayo ayagu waxay ka qayb qaataan kobcinta iyo ilaalinta neerfaha. gaaska oo kale kamid ah. sidoo kale dhiig karka oo kale wuu keenaa asna in yani cagaha ay ololaan oo kale. vasculitis oo kale waa caabuq ku dhaca xididada dhiiga, asna wuxuu keenaa in yani cagaha ay ololaan oo kale qofka. waxaana looga hortegi karaa amaba lagula tacaali karaa in qofka uu isticmaalo cunooyin isku dheelitiran, iskana ilaaliyo kobaha ku dhagan oo kale. qofka hadduu miisaankiisa weyn yahay oo kale ama uu cayilan yahay oo kale in miisaan dhimis uu sameeyo oo kale, miisaanka uu iska rido. kobaha dhaadheer oo kale qofka inuu iska ilaaliyo. sidoo kale cilaanka dalwandiga oo kale wuu keeni karaa asna in dalwandiga haweenka yani cilaanka dalwandiga inay iska daayaan oo kale hadday cagaha ololayaan. marka waxaa jira laba step oo yani daaweynta waxay noqonaysaa laba step guriga lagula tacaalayo iyo step oo isbitaal la aadayo. horta xaaladaas horta waxaa wanaagsan haddaa isku aragtid oo kale inaad isbitaal la xiriirtid. haddase waxaan ka hadlaynaa xaalad yani step oo guriga lagula tacaalayo. sorry aadaana naga kala jaray bacdi salaad hadda dib iskugu soo laabanay. waxaa soo qaadanaysaa weel yar, waxaa ku shubaysaa 3 qaando oo guruud ah, 3 qaando oo sariir qumba ah iyo 3 qaando oo tufaax ah. waa isku qasaysaa, lugaha marinaysaa ama bacagaha marinaysaa, 15 daqiiqa ku haynaysaa. waana ku daliigaysaa adoo isticmaalayo suulashaada. hadday noqoto in isbitaal aad xiriirtidna, isbitaalku wuxuu fiirinaa marka hore xaaladan waxa kuu keenay cagurka ma gaasa kuu keenay. haddii gaas uu kuu keeno waxaa laga daaweynaa gaaska. haddii uu fitamiiniska yarya uu sababina dhakhtarku wuxuu kor kuugu qaadaa amaba ay kor kuugu qaadayaan isbitaalada fitamiiniska markaas kaa yar. fitamiiniska haddii kor loo qaado yani fitamiiniska marka hore kuugu sababo cago ololka, soo marka fitamiiniskaas ay kor u qaadayaan. waa intaas maanta cashirkeena intaanu ku egyahay. وصلنا حبيبكين محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.